السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوديال وحسيت توس أي نقطة ونيسان والبنتها جيمن اللي أنت أفكار الصومالية وهجاك داوديال مركه رأسي أنكو بالله بيحلي تبنتنا وركو بدور كورونا وحكم ده إن كبضن صدني شنكون وعرضي أيوه فديستي امتحان كشهادة جاي فصل كسديدات ديجان كالصومالية waxaa magaalada Jigjiga laga daafuray wajiga labaad ee mashruuca hiil oo ah mashruuc lagu horumarinayo caafimaadka dadka xoolaha iyo deegaankaba isku soo noqod wanaagsan daawadayaal kuwaasina waxay ahaayeen wararkeena ugu doorka roon marka hore aan ku bilaabay in ka badan 35,000 oo arday ayaa u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad ee deegaanka Soomaalida daawadayaal hadda si aan gudubno muuqaalka soo dhameystiran بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta si rasmi ah u furay imtixaanka galaaska 8aadka oo ka dhacay guud ahaan deegaankeena dhammaan maamul magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanku ka kooban yahay waxa uu fadhiisanaya 35,227 arday imtixaankan waxa lagu qabanayaa xarumaha degmooyinka iyo maamul magaalooyinka laakiin laguma qabanayo iskuuladii ay ardaydu ku dhiganayeen arrintaana waxa loo yeelay si loola dagaalamo qishka iyo wax isdabamarinta imtixaanka isla markaana kor loogu qaado tayada imtixaanka waxa guud ahaan laga shaqeynayay diyaar garowgiisa mudooyinkii ugu dambeeyay diyaar garow aad iyo aad u ballaaran baa laga sameeyay goobaha lagu qaadayo imtixaanka geyntii goobaha loogu talagalay ilaalinta amniga imtixaanka iyo sidoo kale wacyigelinta ardada iyo waalidiinta si ay ugu diyaar garoobaan imtixaanka qaaditaankiisa runtii dadaalkaasi waxa uu keenay maanta si habsami leh inuu deegaanka uga qabsoomo dhanka kale waxa iyadana maanta ku hawlahan imtixaanka dhammaan maamul magaalooyinka iyo degmooyinka iyo gobolada iyagoo mas'uuliyiintu u dhaadhaceen goobaha imtixaanka lagu qaadayo oo ay kormeerayaan geedi socodka imtixaanka waxaa sidoo kale kaalin weyn oo mugla ka qaadanaya hay'adaheena amniga oo runtii kaydinta imtixaanka goobo ku habboon in la dhigo goobaha imtixaanka in amnigooda si heer sare ah loo ilaaliyo dadaal badan bay hay'adaha amniguna ay ka sameynayaan waxaan rajaynaynaa inuu ku soo dhamaado si nabadgelyo ah iyo waliba nidaamkii loogu talagalay maanta iyo bari buu imtixaankani socon doonaa insha Allahu ta'ala wuxuu u noqonayaa imtixaankani tusaale dadaalka ay xukuumaddu ku jirto sidii loo heli lahaa arday tayo waxbarasho leh isla markaana loola dagaalami lahaa qishkii lugooyada ahaa ilmuhu isagoon waxba baranin lagu baasinayay isla markaana mustaqbalkiisa lagu haleynayay waxaan rabnaa caruur la hubo oo tayadooda la hubo inaan soo saaro mustaqbalka ummadan iyo jiilka maartay soo socda in ay noqdaan kuwo aqoontoodu tahay mid dhab ah oo lagu tiirsanaan karo laakiin ayna ahayn mid ay ku heleen nidaam aan sax ahayn iyo qish iyo wax isdabamarin taasoo runtii baabi'inaysa mustaqbalka iyo aayaha bulshadeena waana dadaal aad iyo aad u ballaaran waana wax lagu faani karo waxaan rabnaa mustaqbalkan inaan sii xoojino insha Allah ta'ala waxa magaalada Jigjiga laga daafuray wajiga labaad ee mashruuca hiil oo ah mashruuc lagu horumarinayo caafimaadka dadka kan xoolaha iyo deegaankuba daawadayaal hadda si mar kale u gudbino muuqaalka soo dhameystiran waxaan maanta halkan u nimid daafurka mashruuca hiil to one health oo phase 2giisii ama wajigiisii labaad mashruucan phase 1kiisii wuxuu ka shaqeynayay gobolada Daawa iyo Liibaan degmooyin kamid ah hadda phase 2gana wuxuu ka shaqeynayaa isla labadaas gobol oo degmada Filto iyo degmada Moyale ayuu ka hirgeli doonaa mashruucan waa mashruuc one health program ah wuxuu ka saarayaa environmentalka livestock iyo humanka saddexdaasba waxaa ka kaashanaya xafiiska environmentiga xafiiska caafimaadka iyo xafiiska xoolaha oo ku ah partner mashruucan waxaa hirgelinaya hay'adda VSF MRF iyo LRI saddexdaas hay'adood baa iska kaashanaya hirgelinta mashruucan wuxuu ka shaqeeyaa saddex wadan buu ka shaqeeyaa Ethiopia Soomaaliya iyo Kenya
Ethiopia deegaankeena ayaa nasiib u yeeshay inuu labadaas degmo uu ka shaqeeyo kulley baahida ka deegaan ahaan loo qabo mashruucan One Health-ga oo runtii environmentalkii xoolihii iyo caafimaadkii dadkaba lagula tacaalayo ama lagaga warhaynayo baahi badan buu deegaanka u qabaa waxaan rajaynayaa insha Allah in isagoo intan ka balaaran uu mar labaad deegaanka iman doono kana shaqeyn doono degmooyin iyo gobollo intaasi ka badan mashruucaas wuxuu ka saabsan yahay mideynta caafimaadka bini'aadamka xoolaha iyo beeyada taas oo ah mid muhiim u ah sababtoo ah caafimaadka haddaynan xooluhu caafimaad helin dadkii buu ku dhacayaa beeyada haddaynan caafimaad helin xoolihii bay saameyn xoolihii hadday saameysana cudurkii haddana wuxuu usoo gudbinayaa bini'aadamka marka mashruucan waa mashruuc weyn ay isu keentay macnaha fandi garaysay waddanka Switzerland qaybteeda la dhaho SDC waa mashruuc la rabo inuu 4 sano ee soo socdo inuu wax ka qabto isku xidhka caafimaadka saddexda qaybood ee kala duwan aan hadda soo sheegnay marka mashruucan waxaa la rabaa in laga fuliyo gobollo kala ah goboladan Liibaan iyo Daawa marka waxaan rabnaa mashruucan inuu focus ka saaro xoolaha caafimaadka iyo beeyada marka isla mar ahaantaana mashruucan waxaan rabnaa inaan bulshada xoololeyda ah uga faa'iideyno ayagoo marka la gaarayo meelaha ayna gaarin waxaa la samayn doonaa mobile team ku kooban saddexda componenti oo saddexdan qaybood ee mashruuca focus ka saarayo ka kooban markaas wuxuu samayn doonaa inuu meelaha bulshada reer guuraaga ah oo la socdo kolba meeshay degaan uu la tago mobile team kaas marka xoolihiin u daweynayo caafimaadka dadkana siinay waxaas oo dhan waa hagaag daawadayaal in ka badan 1.4 milyan oo caruur ah ayaa laga talaalay talaalka wareegga labaad ee ololaha talaalka isku dhafka ee boolayada waa hagaag daawadayaal marka la soo gudubno muuqaalka soo dhameystiran maanta waxaan iskugu nimid daahfurka ee talaalka dabeesha ama boolayada wareegga labaad kaasoo dhammaan gobolada 12 gobolba iyo 95 degmo iyo 6 maamul magaalo basaaka laga bilaabi doono talaalkaasoo la talaali doono 1,448 ilmood oo kun ayaa la talaali doonaa da'da la talaali doonana waxay tahay waa iyaalka 5 jir ka yar weeyaan wuxuuna bilaabmi doonaa maanta bisha sanay 3 ilaa bisha sanay 6 ayuu ku dhammaan doonaa runtii talaalkan wajigiisii koobaad waxaan sameynay bil ka hor deegaankoo dhan waa laga fuliyey talaalkan iyo muhiimadda uu leeyahay runtii lama soo koobi karo waxaynu ognahay carruurta da'doodu 5 sano ka yar tahay inay u nugul yihiin cudurrada talaal la'aanta lagu kala qaado saa darteed xanuunadaas oo lagu yidhaahdo afka qalaad vaccine preventable diseases ama xanuunada talaalka lagaga hortagi karo maadaama talaal lagaga hortagi karo xanuunka dabayshuna uu ka mid yahay oo xanuunada uu ka mid yahay waxaa laga maarmaan ah in dadaal badan iyo maaragtay juhdi badan la geliyo talaalka noocan oo kale iyo helitaankiisa iyo gaadhsiinta bulshada la gaadhsiinayo saa darteed xafiiska caafimaadka heer deegaan oo kaashanhaya macadka cilmi baadhista caafimaadka bulshada ee Ethiopia iyo wasaaradda caafimaadka ee heer qaran dadaal badan ayay geliyeen talaalkan inuu maanta halkaas soo gaadho dhammaan deegaanadana laga wada fuliyo deegaankeenuna ka mid yahay waxaa qorshuhu maanta ahaa oo noo qorshaysneed inay guud ahaan degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka laga fuliyo haddii ilaahay yidhaahdo tiimamkii ama kooxihii fulin lahaa ee farsamana heer deegaan heer gobol iyo heer degmo intaba waanu ka abaabulnay mudnaan noocaa ayuu talaalkani leeyahay jaranjartaa iyo dadaalkaana xafiis ahaan waan soo gelinay runtii talaalkan maanta halkaa ma soo gaadheen haddii aanaan bahwadaagta aanaan abaabulin oo aanaan si dhow hawshan aanaan uga wada shaqaynaan dadaal badan ayaan gelinay iyaguna runtii aad iyo aad dadaalka way noola garab galeen
وهجك داوديال انتاسي وحنا ويج waxaan idin haynay warkana waxa si toos ah idinkugu tabinayay anigoo ah Cabdirasaaq Xuseen Fille waxaan idinkaga tagay sidaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.